Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faysal Sheikh Cali Jiif Jabsade oo shalay hadal ka jeediyay magaalada Gaalkacyo ayaa ciidanka BSF ku eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen dilalkii qorsheysnaa iyo madax jabiskii laga reestay ee ka dhici jiray Gaalkacyo. Gudoomiye Faysal Cali Jiif Jabsade oo aan soo bandhigin wax caddeyn ah oo muujinayo eedeynta culus ayaa sheegay in taniyo maalinkii shaqada laga joojiyay ciidanka BSF uusan ka dhicin magaalada Gaalkacyo dil ama madax jabis dambe sida uu hadalkiisa u dhigay. Wuxuu sidoo kale eedeeyay ciidanka BSF inaysan weligooda soo qaban qof loo haysto dilalkii ka dhici jiray Gaalkacyo, isagoo intaasi ku sii daray in BSF ay ka daba tagi jireen qofkii lagu qabto madax jabis si ay xabsiga ugu sii daayaan, taasi oo sheegay inay u baahan tahay fasiraad dheer. Maalintii shaqada laga joojiyay ciidamada uu madaxda ka yahay Diyaano wixii ka dambeeyay Gaalkacyo qofna laguma dilin, midna madaxa looguma jibin, weligeedna hal qof madax jabis ah ma aysan soo qabanin. Kuwii lagu soo qabtayna BSF ayaa daba socotay, arrintaasina fasir bay u baahan tahay ayuu yiri markale Jiif Jabsade. Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan BSF oo ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ayaa sheegeen in eedeyntaasi ay tahay mid aan sal iyo raad toona aan lahayn, wuxuuna xusay in BSF mar waliba u taagan tahay difaaca midnimada iyo amniga Puntland, isla markaana marnaba aysan ka shaqeyn wax horseedi karo xasilooni daro. Waxa uu sheegay in ay jiraan dad dana gaar ah leh shacabka u gudbinayo warar qaldan, kuwaasi oo ku eedeeyay in BSF ay ka dhigayaan cadowga shacabka magaalada Gaalkacyo. Waxaana shacabka leenahay niyad sami ku jooga, yaan la idin marin habaabin. BSF waa ciidankii difaacayay Puntland, waa kuwii u dhintay waana u dhaawacmay, uguna adeegayo daacadnimo ayuu yiri. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faysal Cali Jiif Jabsade ayaa sidoo kale ku eedeeyay ciidamada BSF inay u adeegaan dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana ay ku lug leeyihiin falal sharci darro ah oo khatar ku ah amniga Puntland. Wuxuu sheegay in dhaqdhaqaaqyada ciidan ee BSF ay ka sameeyaan magaalada Gaalkacyo ay yihiin kuwo si gaar ah loogu talagalay burburis, isku dhacyo ciidan iyo fowdo, taasi oo lagu carqaladeynayo xasiloonida magaalada Gaalkacyo.